kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena layaabi films oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira Atoorayaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamay inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywood-ka. Hadaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena layaabi films fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. warbixintan ayaa maanta waxaan ku eegi doonaa Atoorayaasha Bollywood-ka iyo mid walba inta gabar ee Bollywood-ka kala shaqeyso ama ka baxsan oo shukaansaday, waxaana ku jiraan Atoorayaal caan ah oo hadda Bollywood-ka hogaaminaya. Hadaba isleedahay way ku jiraan oo xidig aad taageero u tahay iyo sida ay u kala badan yihiin oo aad la yaabi doonto markaad aragto. aan isla fiirino hadaba warbixintaan aan ku bilaabno xidiga ugu doobsan Hindiya ee Salman Khan liiska shanaad ayuu ku jira, waana 54 sano jir aan weli guursan, waana midka ugu shacbiyada badan Hindiya waqti xaadirkan ee la joogo. xidigan ayaa xiriir kala duwan la sameeyay tirishooyin kala ah Aishwarya Rai Bachchan oo midka ugu saameynta badnaa ahaa oo dagaal ku dhamaaday, waxaana ku jira liiska tirishooyin kala sida Katrina Kaif, Samgita Bijlani, Zarina Khan iyo kuwa kale. Shahid Kapoor ayaa shukaansaday wax ka badan 5 gabdhood ee Bollywood-ka ka howlgala, wuxuuna kaga jiraa liiska afraad, wuxuuna la haasaaway Kareena Kapoor Khan, Priyanka Chopra, Amrita Roy iyo kuwa kale, laakiin hadda waxa uu dhaxda gabdha lagu magacaabo Meera Rajpur. Ranbir Kapoor wuxuu kaalin saddexaad kaga jira kuwa ugu shukaansiga badan gabdhaha, intuu xirfadiisana ku jirna gabdho badan ayuu isku badbedelay. gabdho la haasaaway waxaa ka mid ah Deepika Padukone, Anushka Sharma, Katrina Kaif, Avantika Malik, Sonam Kapoor iyo kuwa kaleba. haatan wuxuu xiriir kala dhaxeeyaa Alia Bhatt oo lagu xamanayo inay dhawaan aqal galayaan, inkastoo dhimashada Rishi Kapoor iyo xanuunka COVID-19 ay kala weeciyeen. Akshay Kumar wuxuu kaga jiraa kaalinta labaad ee xidigahan, wuxuuna la soo jaanqaaday xiriir la sameeyay in ka badan 5 gabdhood xirfadiisa intuu ku guda jiray, waxaana hoggaanka u haysa Shilpa Shetty, Kundra, Rafina Tandon, Rekha. haatan ayaa waxa uu dhaxda gabadha uu dhalay halyeyga loogu haray filmada jaceylka Rajesh Khanna, halka ay hooyo u tahay Dimbal Kapadia. ugu dambeeyna qofka ugu dambeeya ee warbixinteena waa Baba of Bollywood, Sanjay Dutt, wuxuuna la soo xasaabay in ka badan 308 gabdhood xirfadiisa, waxaana ugu caansan Madhuri Dixit Naina, xaaskiisa koowaad Richa Sharma, xaaskiisa labaad Riya Pillai iyo xaaskiisa saddexaad Manyata Dutt. intaas ayaanu ku soo xireynaa warbixintan. haddaad ka heshanay la wadaag asxaabtaada.